maalin walba beertan ayuu u soo shaqo tagaa Jaylaani Cabdiqani waxay ku taalaa duleedka Xeraale ee gobolka Galgaduud waa beer tijaabo u ah dadka degan gobolkan waxaana lagu guuleystay in lagu beero miraha iyo qeybaha kala duwan ee dalaga kuwaas oo loo doonto deegaano kale waa sababta uu Jaylaani dhexda ugu xirtay in uu beero dhulkan waxa lagu leeyahay qudaartii waxa laga sugayaa shabeelle hoose ka soo baxday oo gaari baa dhex kula soo jabay dadkiina qudaar buu u baahan yahay beledweyne ka soo baxdo buundadii baa biyo ku fataheen waa soo mari weyd marka sidaas la ajligeed baan waxaan fakarnay in dhulkaaga inaan isku day sameeyno inaan dhulkaaga wax kala soo bixi karno qudaartii kala soo bixi karno mirihii ku samaysan karno aan tabacaas inaan sidaas u galno sidaas ay u kaliftay in dhulkaan beero u baahan yahay iyo dadka jooga iyo deegaamadiisu galmudug ay u baahan tahay Jaylaani waxa uu doonayaa in beertan ay tusaale u noqoto dadka degan galmudug wuxuuna rajo ka qabaa in la arko wax soo saarka beertan oo ay ka faa'iideysanayaan dadka galmudug inkastoo ay jiraan caqabado hortaagan waqtigan rajooyinkiisa waxaan doonayaa beertan inay noqoto beeraha galmudug qudaarteeda beerta ku filnaata hadday tahay liin hadday tahay cambe hadday tahay moos hadday tahay babaay hadday tahay qaro hadday tahay bocor ayu nooc hadday tahay koosto karooto geed mirood iyo dalagba waxay rabtaa ha ahaato inay aad uga kaafiso dadka jooga galmudugna ay ku daydaan hadafkaas ay qaataan ayaan runta rajaynayaa anigu sida aan rabo u socda ay tahay waa haddii aan helno taakulo waxaan u baahanahay taakulo waxaan u baahanahay biyo inaan helno hadda motorku waa naga jaban yahay waa naga xumaaday waa gadan waaye markaan runta ku sheego motorku waa gadan waaye hay-ada naguma xirna hay-adu weliga hay-adu ma imaan beertan waxna nagama qaban ama ceel ha ahaato oo ceelkana nagama taakulaynin ceelal baa soo la iska saarayo iska daadanayo meel la iskaga daata anagu biyo la'aan baanu ka cawaraynaa beertan waxa ay sidoo kale goob dalxiis u tahay dhalinyarada Xeraale iyo gobolka Galgaduud deegaano fog ayay dalxiisayaasha qaarkood ka yimaadaan si ay halkan sawiro ugu galaan maadaama uusan gobolkan lahayn dhul beereed kulansaday noocyada kala duwan ee miraha iyo dalagyada waan soo aadaa waxaan u soo aadaa inaan waqti badan ku qaadano anoo dhalinyaro badan ah oo sawiro fiidiyoyaal wax walba waan u soo aadnaa saastaan waxa ku kulanaa dhalinyaro badan oo ka kala timaada gobolada sida galmudug degmooyinkooda kale Cawdaaq Dhusumareeb Cadaado Gurceel dhalinyaro badan ay dhalinyartu is yaqaanaan oo isbalansadaan goobta ay ku kulmaan oo markaas waqti ku wada qaataan jawi waa meeshan waxa uu imaado maanta inaan ku dalxiiso waa goob aad u qurux badan waa goob nasashada ku fiican ma sha Allah aniga qaas ahaan meeshan waa ka helay waa meel soo jiidatay aniga toddobaadkii marba imaada waxa kale oo meeshan dhalinyarada waxa ugu baaqaya inay meeshan imaadaan waa meel ma sha Allah aad u fiican dhalinyarada u fiican dadka waaweyn u fiican sida maalmaha fasax oo kale to dhalinyarada waxaan dhiilaahay imaadaan aad u qurux badan tahay Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Xeraale